dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo waajibaad dastuuri ah ka saaran yahay ilaalinta gobonimada iyo madaxbannaanida dalka ayaa muddooyinkii dambe waxay xoogga saaraysay in la sugo xuduudaha waddanka sida bariga, badda iyo hawada. waxaynu wada xasuusanaa in dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay hore ugu guuleysatay la soo wareegitaanka iyo gacan ku haynta maamulka hawada Soomaaliya, iyadoo maalmihii u dambeeyana uu dalka ka dhaqan galay amar ka soo baxay dowladda kaas oo lagu mamnuucay duulimaadyada caalamiga ah sababo la xiriira xanuunka coronavirus si loo ilaaliyo badqabka caafimaad ee muwaadiniinta Soomaaliyeed. barnaamijka waxaan idinku soo gudbinaynaa tallaabo kale oo muhiim ah taas oo dowladda Soomaaliya ay u qaaday sugitaanka xuduudaha badeed ee dalka. toddobaadkii hore xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo ururka badaha caalamiga ah ayaa ku dhawaaqay in dowladda Soomaaliya ay u diyaarsan tahay xaqiijinta ammaanka xeebaha ku tiirsan dalka. tallaabadan guusha ah ee hore loo qaaday ayaa timi kadib markii dowladda Soomaaliya ay ku guuleysatay dhamaystirka xeer dowladda u sahlaya inay qaado mas'uuliyadda saaran, waana xeerka gaadiidka badda. xeerkan ayaa markii ugu dambeysay ee wax laga bedelo waxay ahayd 1988 iyadoo arrintan ay calaamad u tahay gabagabada dhowr sano oo la qabtay shaqo iyo dadaal ku saabsan sidii horumar loogu sameyn lahaa xeerkan si uu la jaan qaado adduunka casriga ah. xeerkan runtii wuxuu wax ka tari doonaa runtii teknolojiyada cusub sababtoo ah sharciyadeena badanaa waxaa la qoray xilligii dowladda aan ognahay. waxyaabo badan marka waxay ahaayeen waxyaabo iska manual ah oo nagu kooban, laakiin si aan ula jaan qaadno shuruucda caalamiga ee jira waxaan ku qasbanaanay inaan xeerkan aan horumarino. wuxuuna runtii aada u faahfaahinayaa qaabkaan u xakameyn lahayn dhinaca wasaqeynta badda oo hadda aan ognahay badaheena waxa ku socda. haddii ay noqon lahayd maraakiib aan sharci lahayn inay ka jilaabanayaan ama ay soo galayaan biyaha Soomaaliya, qaabkan ula tacaali lahayn. sidoo kale maraakiibta ganacsiga oo waddanka imaanaya iyo qaabka loola tacaali lahaa haddii ay dhibaato dhacdo ama ay rabaan inay waddanka yimaadaan. marka xeerkaasi wuxuu aada runtii waxa uga tari doonaa lana jaan qaadi doonaa sharcigeenii dalka u degsanaa number 5. xeerkan waxaa ku lifaaqan mas'uuliyadaha muhiimka ah ee la xiriira waajibaadka dowladda oo ay ku jirto awoodda sugitaanka xuduudaha biyaha iyo ilaalinta kheyraadka dalka. marka waa jirtaa inuu sharcigan wax badan ka qaban doono. waxa ugu horeysa ka qabanaya waa markabka xeebteena soo maraya inuu sharciyeysan yahay inuu sharciyeysneen. haddii markabkaas uu yahay markab calanka uu wato aan sharciyeysneen, annaga waxaan la shaqeynaa hay-adaha ugu waaweyn ee adduunka sida International Maritime Organization oo kale oo adduunkoo dhan maraakiibta gooshtay xiriirkoodii nidaamkoodii la socdaan. kan xeebaheena soo maraya rasmi ahaan iyagina way la socdaan, annagana waa la soconaa. haddii uu yahay mid illegal, haddii uu yahay mid xeebteena iska soo galay isagoo sharciyeysneen, nidaamyadaasaa qabanaya. sharcigaana wuu tilmaamaya, xataa wuxuu tilmaamaa habkii loo ganaaxi lahaa, habkii fine looga qaadi lahaa ama ganaax looga qaadi lahaa, habkii loo qaban lahaa oo loo xakameyn lahaa, habkii loo xayiri lahaa. waxyaalo badan oo maaragtay maraakiibta ku saabsan ayuu sharcigan nidaaminaya. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu hore u ballan qaaday in dowladdiisu ay mas'uuliyad weyn iska saari doonto ilaalinta xuduudaha badeed ee dalka. qaramada midoobay ayaa soo dhaweysay in dowladda Soomaaliya ay ku guuleysatay soo cusboonaysiinta xeerka gaadiidka badda. qaramada midoobay waxay tallaabadaasi ku tilmaantay inay tahay mid xaqiijinaysa in waddanku uu hoggaansamayo qaab dhismeedka badaha ee caalamiga ah sida heshiiska qaramada midoobay ee sharciga badaha. dhinaca kale tallaabadan waxaa la aaminsan yahay inay sare u qaadayso dhaqaalaha waddanka ka soo gala dhanka aagga buluugga ah. xeerkan gaadiidka badda ayaa sidoo kale dejinaya qaab dhismeedka deegaanka iyo ilaalinta suurtagalnimada biyaha ku tiirsan xeebaha waddanka. Soomaaliya waxay leedahay xeeb aad u dheer oo ku fadhida dhul dhererkiisu yahay qiyaastii 2060 mayl oo u dhiganta 3330 kilomitir. waxaa xeebtaasi dhex eegaaga kheyraad badan ayna ka mid yihiin macaadin kala duwan, aargoosatada iyo kalluun. waxaana muhiim ah in kheyraadkaasi laga faa'iideysto loona ilaaliyo ummadda Soomaaliyeed.